والله شيء معان قال عدي فارح أباي ما أنت أبدكم هوايو والله مركا والله الهيست الدنيا كلها سكرتها ساعة معنا والله شيء معان ويلقى إلى شو كنت أحضر أيداكو إلى الله يسوع مثلا أنت إنك سلامة غيرت غير بدن qiimaha ay gabar ay leedahay waxaa dareemi karo wiil ay gabar la dhalatay. Maxamed Cabdi Faarax waa wiil dhalinyaro oo ka mid ah dadka isticmaala baraha bulshada. Muuqaalada uu ku soo gudbiyo bartiisa ayuu inta badan ku soo amaanaa gabar la dhalatay. Dadka ku xiran bartiisa ayaa siyaabo kala duwan ugu falceliya muuqaalada uu ku soo gudbiyo bartiisa. waxaanu isticmaalka barta TikTok uu bilaabay sanad ka hor. walaashay macaan qaali Cabdi Faarax internet ka salaama walaashay da'diga weyn abay macaan ilaa qeyraysiye ayadana waxay degan tahay andhow gobol adi gabdho badan way la dhasheen laakiin markii guri la joogo oo ilmo badan ay gurigooda joogaan hal qof isfahmi karaan ma isfahmaa isla faraxsan marka ma sha Allah gabdho badan ay dhashay aabahay dhalay ayaka inta kooda salaam gabdhaha la dhashay walaashaydaas dhowr goor magaceeda soo qaatay anoo guriga jooga video soo duubay video qarxay ummadii koontii caay mid iyo amaanay mid iyo caay mid idhaa walaashis ku faana iyo mid dhaayo safita wala sheeka ummadii noqdaan marka anina talantii in noqoto inta hooyada mootaneed aad ugu jiray kabacdi aabba xanuunsaday aabba hay jiray Allah naxariiso isna xaw dhintay mar loo kulaatay afarta bishii koowaad aabba Allah naxariiso dhintay markaas aabbo dhintay kabacdi anana iskuris noqday أنا قاعد في شقة ساي قفنا كورني قلنا يكرسنا إلى هذا waxay ugu dhalatay walaa abaay alaana xariisto marka horta abay oo gud galay ay dhalatay inaan baraha bulshada soo biiro oo aan magaalkay gees u galo oo 2024 bishii koowaad inkastoo abay oo dunida ku dambeeyay haweeney ku horeysay marka aabba alaana xariistay Allah raxmada oo aabba dhintay maskaxay soo gashay inaan nin shaqaysto noqdo magaalkay galo bulshada ugu xeeran ani dusha saar waxay ugu dhaliyay adii hadda maanta waa taqaanaa ganacsi TikTok qayb weyn oo kaleey marka TikTok qayb weyn oo kaleeyahay maskaxna isticmaasho marka adina fikrad dhaliisid aragti inaan shaqaysto magaalka adis waa qabtay iPhone aan gatay ayaana shaqaystay soo shaqaystay iPhone aan gatay Xmax amal Xmax ka gatay intaana gadan ka horna dad oo asxaabta taqaana ay xaafadeed telefoon ay leeyihiin wax ku soo wari jiray qof marka atinta u jaraba soo wari jiray TikTok ay jiray sida marka macmiilku yeeshay meel islaamka shaqo kursi islaamka shaqo jirma oo ay kira ku joogo kursiga u shaqeysay marka ayaan marka shaqeysay mid walaalkay ilaa qeeraasi abay curudkiisa asiga la hadlay marka lacag u deemiyay lacagta markii u deemiyay ana baxay babiri dhan oo ugu dhagana babiri ku dhagana gatay marka baraha bulshada saas oo TikTok oo ku soo galay baraha bulshada wallahi badan waa kale maadaama ganacsi uu fiican horta wax xaalada TikTok ma si oo jiima TikTok dhan xaalada furo naag garo oo nin raadis iyo nin ganacsi oo naag ganacsi labadaas TikTok loo galo dadkan kale bilaash u joogaan qof ganacsi isku xiisiisay naag garo dhayso ninkii ka dhaxraasiis alaas lagu tala galo TikTok marka kaasaani ganacsi iyo hadaf kale TikTok baraha bulshada ku jiro. Maxamed waa shakhsi ay geeriyoodeen labadiisa waalid waxaa jira hadallo badan oo ku reeba uur ku taalo waxa uu jeclaan lahaa haddii nolosha dib loo celin karo inuu la kulmo labadiisa waalid waxa uu sidaasi ku sheegay muuqaal uu soo dhigay bartiisa kadib markii uu arkay waxyaabo badan oo uur ku taalo ku reebay horta caqabadaas way jirtaa mideedo kale hadda koor mid ugu dhacdo hadda koor aan saddex dhalinyaro ahayn markii saddex loo weynay marka waa taqaana markaas laakiin aabbo noolay wiilasha israacnay barxad banooniyo u soconay saas u soconay labadooda nolosha marka saas u soconay wiilasha anaga soo soconay axana war imaaday ma wiil mid lagu weynaa hooyisana war imaaday mid kalena tukaana ku leeyahay ani meeshii wiilkii iyo maamadii ay istaagay marka ay istaasaan niisoo fiirsho raxayna agtahay inta marag dhaqaaqid marka maalintaas horta inta aqoon lagu ma taas ay u dareen hooyona waa taqaanaa marka xanan hooyana waa taqaanaa hooy xasuusa gal markaas ay u darnaan horta habeenkaas habeena xasuus kale ahayd oo hooyada abi soo xasuustay
waxaan ku soo xasuustaan waxay ahayd yaraa saaxiibanahay oo hooyadiis ay wacayso. waxaa arkay aan timajara ka shaqeeyay hooyadiis xilli dambe inay marka dhafareyna soo xaro ay dhayso hooyo magaalka jiraay igu wareejo hooyo camal. marka horta xasuustaas ku gala hooyadiis oo asoo ka afcilaa aan maqlay bis in asaageeyo ficil oo meesha iga jiraay. marka taas ku xasuustay ilaa habeenkii aad seexdaa ku dhahay wallaahi xasuustaas ma bixin. marka anaa tiktok waxaa soo dhigay marka waa meel kale ku nafista malaan hal shakhsina waa guri qolkiisa ku jiro. marka nafsiga marka inaan dhaho maanta dib lii cilaha waxaa la kulmi lahaa hooyada macaan Muraad Maxamed Kulan iyo aabahay Cabdi Faarax Siyaad. Allah naxariiso maanta labada iga hooseeyaan. wallaahi weerartintu ku nool inaad faa'iideysid adii xitaa wax dan ku ah oo ku duceysid duca ka qaadatid. maasha Allah horta ana hooyada aabay way duceeyeen ana iga dardaarmo markay dhimaayeen la hooyana ana yaraan u ahaa aabana wiilkiisii oo haya ahay. Allah naxariisto. marka inta noo saax macaan gabar ama wiil ahaw inta noo hooyada ka duceyso ka faa'iideyso gacanta qabo si biri ilmaha gacanta ku qabtaan. waxbarashadiisa ayuu kaga haray fasalka 3aad ee dugsiga sare. waa kan isagoo inoo sharxaya sababaha uu uga haray waxbarashadiisa. waxbarashadeeda ilaa famtriya sanadkan hadeertaan oo imtixaankii ilaa hadda xamar laga gelin imtixaanka famtriya ahay qof igama bixin ku shil anaa iska baxaayo saas lacagta iska baxaayo oo habeenka dan babiri waa taqaanaa marka qofka macmiil leeyahay 8 saac minuu ku gaara ilaa 9 saac minuu marka qaar gaara oo markii xaflada ka magaalada ku jirto dabaaldeg markuu jiro meel dhaqaaqniis waa shaqeysay ninka shaqeysay shaqada go'an oo taagnaha. marka saas samay jiray anoo sidii iskuulka subax kasta marka warda ka daawo taga laabo baaga ka laaba ani subaxii maqaayada ka quraacda qada maqaayada ka qadiya maqaayada ka cashiya jeebka ku nool iskuulkan jeebka iska buuxda waxaas qori uma anoo famtiri 15 baa taqaana teeram 15 fasax hore waxaa aaday marka gobol aaday marka halkaas tagay gobolka tagay haddana gobolku ka sii aaday marka kaas dawlad marka kaas tagay waxaan isiri famtiri hadda ka bilowday lacag ka rabaan inta lacag ka rabaa qarashkaasna qofka baxa maanta meeysi anina baabiiro taqaanaa waxa adi aan cuntid iyo nolosha loo ka faabis. waxbarashada dartan saasa iska joojiyay marka wax ka jeclaa taas oo jirtay jaanis waxbarashada ku dhig kamaana weyn walaalay wax oo ay walaalay wada waa moogta dumashada maanta kuma kornaa kartid subax dumashada kuma soo iska xigtid mideeda kale sidiga kuma kornaa kartid in kala shaqo maanta kuma soo arkay kartid beersi mali kartid. marka taas oo xishooda nin weyn waxa ahay oo awrada laga diday maanta ma jecla marka daan guri laga asturay maanta dhan waa kaliya qal lacag ilaahay jeebkii ma astura. ugu dambeyn dhalinta Soomaaliyeed ayuu ugu baaqay inay shaqeystaan isla markaana ay sameystaan mustaqbal ifaya. marka horta saax macaan horta nin raga tahay ilaahay la waxyood ka dhigay maanta inta hooyada ka soo iskicileed maanta horta hooyada way soo kirisay oo soo xambaartay 9 bilood dhabar ku soo waday inta maanta ina gurigaas jiifato subaxi bixi qataata soo galay ayada lambar gooleed ama ahminka baxday xilliga ama ka walileed saax ma isku tasho shaqeyso magaalka gal biri kamaan xal rabaa inaa shaqeysto gurigeeda joogto wax meel dhigatid marka reeraa yeele saax macaan inaatay xuquuqeeda infant marka magaalka gal shaqeyso saax macaan hooyada aba biri marka reerkeystid waxba iska sugin oo hadal le macna marka meel xitaa aadaysid wax walba jeebka inaa isku furto xamar hadda xataalo mooto daaraysa lacag wa in daasoo aysan lacag wa infant malagu ma jafe qaad emerwa marka inaa shaqeysto isku tashtiyo marka asxaabay gabdhaha wiil xirfado weeyaan xirfad barta xirfadaha la bartaa marka dhirigelintaas ay inahay ana hadda i diyaarsan tahay waadi xilliga bilo ana hadda maanta dhanaa gursa cideeda hadal la bisa uga baahanaan wax kale uga baahan qarash ana iska baxaya ana isbara ana guriga waxaan dhigaa hal xabba uga baahan waxa waaye waa inay inta tagaan ay hadlaan ay dhahan wiilkeeni gabadhaas inka jirta marka waa ani diyaar wax kasta oo laaya maanta qarashkii maantay goor ku doon lahaa diyaar waa ma hore u shaqeeyay hore u buuxayo jeebka isku furaa dhaxaa sheekadan oo kale mid xaajirta oo adi iska ka fududay jacayl oo ilaahay dartiis ku jecel ilaahay lagu sahdid ilaahay ka dhigo oo ku dhayso aroos dhamar rabo guri la igeebis meelka soorida cid la loo geebis waxaasna cid la ka xartamaaday laakiin ay waxa nafsideena qof
dhihi maa gabadheeda hal ii kaafi dhihi aniga maanta marka qofka ku naxaayo oo birna ku dhaqi karaa maanta marka qofka ka naxaayo birna ku dhaqi karaa laakiin qof qarash kugu imaaday meherkiina cirkaagayso qarashna cidii ku dhahday waxaa sax sameeyay bir intii ka dhaqaaqay meherkeedii qarash ku dhigay magaalkii gelaaday oo garobaysay